madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ahna kusimaha madaxweynaha ayaa joojiyay munaasabad ka dhici lahayd Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa taasi oo ay xilka kula kala wareegayeen wasiir ku-xigeenada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo qorsheynta Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kayse iyo waliba Kaysar Cabdilaahi Maxamed haddaba arintaasi si faahfaahin uga helo waxa wax ka weydiiyay Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kayse wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda qorsheynta qaranka xilwareejinta runtii diyaar waan ku maqnaa waxaan ka maqnaa dalka markii xilwareejinta ama magacaabida cusub ee dhacday 5 Juun 2017 Ingiriiska joogay markii dambe aniga reerka ayaa cimrada tagnay marka ana wali soo noqono reerkii aanu joogno cimradeedii marka dhamaysanay la yiiday ayaa runtii warariga yimaadeen xakan waliba leeyahay madaxweyne ku-xigeenka ayaa barashar saaray in xilkii wareejintii la dedejiyo oo aanan anigu dee fahmin maadaama wasaaradii wasiirka oo ka wada hadalnay fasax imra iyo cibaadana aan ku maqnaa inaan markaasi dee barashar lay soo saaray in aan imaado marka runtii dee waxa weeye tigirkii ku noqoshadayda in London ku noqonayo kii kalena la yidibay ku imanayaba waan ka kacnay tigir weeyaan soo goostay dabeetana saasa sabtidii ku imi kowdeedii reerkii oo muxrim oo ahaayo aan waday iyo carruurtii la socdayna jidaan kaga imo ma garanayo waxa ku dhici kara in xanimi karaan dadaalkan waxaan u dadaalay maadaama madaxweyne ku-xigeenkii laga sheegay inuu cadaadis u leeyahay xilkii la wareego oo xitaa gaarsiiyay xafiiskaasi fariisto wasiir ku-xigeenka cusub ee Kaysar Cabdilaahi Maxamed oo runtii aanan ujeedada uu madaxweyne ku-xigeenka haday jirto sidaasi aanu afkiisa kama qaadan laakiin uu mas'uuliyiinta wasaaradda ay soo gaarsiinaysay ay tahay dama fahmin sidii hadana ku soo baxay guddi buu markaa magacaabay qabanqaabo oo dee xafladda qabanqaabisay xilwareejinta wasiir dawluhu emailkiina ku dee ku ayuu soo diray markii dambena waxa magacaabay guddi kale DG-ga marka runtii markaa uu magacaabay dee DG-gu guddidii hawshii way bilaabeen Mansour baanu ka dhiganay marka Mansour taanu ka dhiganay dee shaaraab baa waxa bila hoorna qaadan maanu lahayn qorsheyntuna ma ilahayn anaguna ma lahayn marka wasaaradda arrimaha dibadda markii ay howlkii samaysatay ay soo kareeyeen ama aanu qabsanay kaarakii daabacanay hawshii wadno ayaan wasaaradda qorsheynta ku nidhi war mar xilwareejintu maroon hayna wada dhaaftee aanu markaa ka dhigano labadaba fayluun isweydaarsanno halkaasna martii dabeetana siniintii oo bisha 3deedii oo afarteedu u balansanayn ayaa 12 milyan ayaa madaxweyne ku-xigeenku la soo hadlay marka madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yiri xafladda jooji waxaan ku joojiyaa maxaa dhacay markuu madaxweyne ku-xigeen wuxuu yiri waxa jira buu yiri wadarka saxaaradda oo maraya dalkii dabeetana si awgeed nimankii waa dheela ku qabsado qarash burburiye ma qarashba ma ha burburiye kaarkiina waanu samaysanay fursad fiican baanan u helaynaa aan wasaaradda waxa ka faa'iideysanayno dadka isku imanayay miidiyaha meeshaasi dadku isku arkayaan wax qabadkii wasaaradda iyo wixii noo qabsoomay aanu markaa iibinayno marka anigu waslanahay koska de wax weyn ma ahayn waxa ka muhiimsanay munaasabadda iyo soo bandhigida waxnu qabanaynay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yiri waa amar jooji howlka qorsheynta taga telefoonkiina sidii way ku dhigay sidii markaa ku baaqatay taasi dabeetana tiyaanu ka soo gaarsinay kaararkiina sidii baan ku khasaarinay sidii baan ku qabsanay howlkii shirarka xafladda macnaheedu de way noo dhacday oo macnaheedu ujeedadu wuxuu baahay in xafladda xilwareejinta noo dhacdo si ay ku dhacaysay si ku qurux badnayd dee anigu taasaan u arkaynay laakiin madaxweyne ku-xigeenka aanan isleeyahay dee qaaf way ku ahayd ama ma ahayn madaxweyne ku-xigeen wuxuu soo galo ku siiyo madaxweynaha laba wasiir ku-xigeen xilwareejina ma fahmin anigu tii horena aan ogeyno reerkii aan uga iimeeyo barasharkay soo saaray xilwareejinta horta madaxweyne ku-xigeenka la weydiinaya taasi anigu laakiin waan wareejinay ixtiraam baan laga mudayay madaxweyne ku-xigeenka wasiir ku-xigeenku waraysigan uu siiyay telefishinka Star waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka uu dacwad kaga gudbi doono madaxweynaha Somaliland oo hadda dalka ka maqan anigu cabashadayada ayaa wuxuu noo geystay reer ahaan oo qoyskayga aan uga iimay halka jidda kaga iman maxruumka waxa soo dedejiyay xafladeedii guddiga qabanqaabadu noo sameysay aanu fursadda uga faa'iideysan waxaanu u qabanayno iyadoo qarashaadka hadii la seefgaray wax kale loo seefgarayo sharaab baa la cabi lahayo 100 qof baa hedo $5 oo 500 laakiin koska iyo waxa ka badnaa baa dee jira laakiin arintaasi madaxweyne ku-xigeenka horta la weydiiyay wuxuu la jeeday wuxuu soo faragashay iyadoo dalka xilal badan ka saaran yahay wuxuu soo dhigay aniga maanta wax lagu yiri madaxweyne ku-xigeenka uma sheegin
سأقول بيدين كتشوشي من حكوا حين كده الله شجع قول بدحين لبوس الحجون حلو ولا لكن أنا أقول لما أنا ما نهري بين أيه لكن حجويري هل أنت عسكرش كانوا يرينا مركب كل ساعة مسوينا إيمانو دقيسنين إيمانو قرابين أمر كيسو بوتي مركب دورتي أنا وحي عبشة وحي دبعتول وسمية بارسنالي أنا وسارة أنا ما شخصيا عن بدحينها كسوي بدحينها جملة سمانا بدسوينا عبشة أنا هكذا مبرر من هذا سمك عوابنا بدحينها إلى إنه حكبر ين بدحينها أنا برقب كامل لكن وحنا أركي إنه حد قدبي نقصه حد قدبي أنا يقصه حد قدبي لا بتش أنا نقصه حد قدبي هذا السياسي وباتي أو مدير سياسة طبعا كسو شري أهل عين كانوا كلا وليد الكيت اللوج هاي ما كتعد ما كمان دعين أرنت أنا مدحينا كحيين كسيمية أنا وأهل بيرسون أنا ماركا ودي أنا هين والشخصية وايو جو احترام له ويصير كحيان هي وسارة حفلة ويصير كي بتشوقي ويمنا هي حفلة كسر قريب جلاي ويصير الدولة هي بتشوقي ويصير الدولة هي قرشين تشوقي وسارة ده لما تشوق لما ويصير حجين وحمد حين كحيان وصوفها رجشة ولي ما أرجع وحشوا يجوا بابا وركيا أو السمية لكن أهلتي سود ما أهلن بس أنا هي من سود كلو كلها نو قرر مايو لكن أنا طاهر أنا وين ترسنا يجوا السمية وهكذا كسر عرلي تيجي لي دي خسارة غير كي كجاي محرم كواها وأنا قرأي بشتوين كذا مركزين لا محرم ديني لكن وحاصل إن ده هنتحسي كنت ما على جنوب واي واحد يوجب بهنا من حنا كحيان كذا وما لم يكن بونين بقى من صوف على كشة بدي لما الحلوة لما بيصير كحيان ورقيا حدو دبوا أركيا ولا ورق محاس كلا لو تنور يستو محا كوسكا يدكب حين عايم الشجع وقاعد نجيب حين يسوي وحنا سامين هو حتى ما نهرين وحنا ندوس سلام مع صار لو قديو هي من الأرض يعني هكا كل شرابة وركوي بيحن حدا هو ما ممكن سنين مركانو وحنا الدور إنه وحنا قرح سنو يفرز سد أنو أركني الذهب تايوان وكذا فايدة سنة وحقبت كي وسارة ده رمح تبدأ يسكاش العالمي inta badan marka mas'uul ka cawdo mas'uulka ka sii sareeya awoodiisa inta badan xukuumaduna maqasha ma laga yaabaa in arintan xilka galaafto anigu runtii xil meesha galaafasho ma jirtay waxa weeyaan xilka madaxweynaha ay maday ina magacaabay waxa xilkana waqtiga la baahno wiga qaali kale saata awoodda dastuurku siinaya laakiin anigu cabashadayda waan ka cabanaynaa wuu lagu sameeyay cabasho laakiin damaan waxa ay waxa isugu sameeyay laakiin wuu laga joojiyay xafladaasi xil wareejinta isagana ila soo hadlay sababtaasna uu sheegay sababta ka weynsanana markaasna uu turigay taawna waan ka cabaday marka waxa weeyaan cabashadeeda hadii looga garabo laga garaabi karaa waa laga yaabaa in aanu qaldanaan karo wax kale iska tusaan laakiin dawan saameynayna cabashada soo wadayna cabanaya waan sidii wala sii jarka ahayd baan marayaan waan cabanayaan madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo telefishinka Star dhowr jeer isku dayay si uu arintani wax uga weydiiyo noomay suurta galin balse maaha markii ugu horeysay ee laga cawdo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi